guddiga doorashooyinka Puntland ee Tibika ayaa hadda soo gabagabeeyay doorashada rasmiga ah iyo natiijada guud ee doorashada ka dhacaysay degmada Eyl ee gobolka Nugaal. Guddiga oo shir jiraad ku qabtay xafiiska guddiga doorashooyinka Puntland ee Tibika ee degmada Eyl ayaa hadda sheegay natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday xarumaha lagaga codeynayay 18 goobood ee degmada Eyl. waxaan shaacinaynaa haddana wadarta guud ee urur kasta ahi uu ka helay 18 seejo. haddaan ku bilowno urur siyaasadeedka run iyo cadaalad waxa uu helay 316 cod. urur siyaasadeedka shaqaalaha xoogsatada ah wadarta guud ee codka uu helay waa 55 cod. urur siyaasadeedka dhalinyaradu wadarta guud ee codka uu helay waa 9 cod. urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinaanta wadarta guud ee codka uu helay waa 854 cod. urur siyaasadeedka kaah wadarta guud ee codka uu ka helay 18 seejo waa 2659 cod. urur siyaasadeedka mideeye wadarta guud ee codka uu helay waa 1108 cod. urur siyaasadeedka mustaqbal wadarta guud ee codka uu helay waa 41 cod. urur siyaasadeedka horseed wadarta guud ee codka uu helay waa 359 cod. urur siyaasadeedka ifiya wadarta guud ee codka uu ka helay seejooyinka 18 ah waa 5 cod. wadarta codadka ansaxay ee guud dadkii codeeyay inta ay codadkoodu ansaxday guud ahaan waa 5406 qof. 5406 qof oo codadka ansaxay weey. wadarta codadka xumaaday ee marka la isku daro goobaha oo dhan 18 gooboodii waa 1360 cod. wadarta guud ee dadka codeeyay ee ka codeeyay 18 seejo waa 6766 qof. guud ahaan degmada Eyl dadka ka cod bixiyay wadartoodu waa 6766 qof. iminkana waxaan shaacinayaa kuraasta rasmiga ah ee uu helay urur kasta. ururka run iyo cadaalad waxa uu helay 2 kursi. hore waxaan u shaacinay wadarta guud ee ay heleen ururadu, marka haddana waxaan shaacinaynaa wadarta kuraasta ay heleen. ururka run iyo cadaalad waxa uu helay 2 kursi. ururka shaqaalaha xoogsatada ah waxa uu helay eber. ururka dhalinyaradu waxa uu helay eber. ururka cadaaladda iyo sinaanta waxa uu helay 4 kursi. ururka kaah waxa uu helay 13 kursi. ururka mideeye waxa uu helay 6 kursi. ururka mustaqbal waxa uu helay eber. ururka horseed waxa uu helay 2 kursi. ururka ifiye waxa uu helay eber. wadarta guud ee kuraasta degmada Taalaahi waa 27 kursi. Ahmed Maxamed TV-ga Sahal Cable degmada Eyl ee gobolka Nugaal.